horta dhabar xanuunka waa xanuun kamid ah xanuunada ugu badan ee bini'aadanka ku dhaca, gaar ahaan dadka da-dooda ay 15 sano 20 sano marka qofku soo gaaro waxyaabaha ugu badan ee ku dhici kara waa sida hargabka oo kale. boqolkiiba 70 boqolkiiba 80 dadka bukaan socod ahaanta noogu imaanaya isbitaalada ama dhakhaatiirta lafa u tago dhabar xanuun ayay ka cabanayaan. marka maxaa keena? waxyaabo kala duwan ayaa keeni kara. nasiib wanaag boqolkiiba 90 dadka isbitaalada dhabar xanuunka u taga wax weyn ma qabaan. waxay qabaan murqaha dhabarka ku yaalo iyo saydii u dhexeeyay ayaa ciriiri ah, oo tusaale ahaan qofkii si khaldan ayuu wax u qaaday, exercise ayuu si khaldan u sameeyey, dhinac ayuu muddo u foorarsanaa ama uu qalloocsanaa. waxyaabahaas oo kale ayaa waxay keenayaan muruqii in uu tight noqdo. marka dhuuqsanaantaas ama tightnimada muruqii ayaa waxay keenaysaa marka waxa loo yaqaano muscle spasm iyo xanuunkii imaanayo. laakiin waxyaabo kaleeto oo dadka qaar ee u imaadaan ay jirto boqolkiiba 90 taas waaye waxa xanuunada dhabarka keena. laakiin qofka haddii jug ay ku dhacdo, dadka qaar waxa ay leeyihiin kabaabyo iyo xanuun. dadkaas oo kaleeto waxaa laga yaabaa in ay nervi cadaadis uu saaran yahay. dadka da-da ee dhabar xanuunka la imaanayo waxay tilmaamaysaa in laftii awoodeeda ay yaraatay. dadka qaarkood haddii qandho iyo qallooc laftii ku imaado ay leeyihin, waxaa laga yaabaa inay infection iyo wax ay leeyihiin. dadka qaarkood gaar ahaan ragga da-da ah ama dadka kansarada qaba haddii dhabar xanuun ay imaado, waxaa laga yaabaa inay tilmaamayso kansarkiiyo meesha ku faafay. marka waxa ugu badan laakiin oo ay dadka dhabar xanuunka u keena waa murqihii meesha oo tayd ah oo ciriiri ah.